الرحيم إن شاء الله تعالى وحمد الله بني الناس وعليه إني قلب كست تفسير كمركو الشيخ قبحان كفاية سنشرني جزاه الله خيرا وحانكو بالله من السائل كان وحولي هاي السلام عليكم الشيخ وحانا هاي نندل يراء سيدان أغنى هينا وحال لغو جرى اللوك داون سيدا أوغيت وحال ليري قريها لغو تكدو marka anigana quraanka ma aqaano kitaabka xitaa kama akhrin karo gabadhii ayaa tiri aniga ayaa ina tukin kadib waxaan u sheegay inay suuragal ahayn diin ahaan kadib waxaan ku heshiinay inaan anigu xagga hore istaago oo imaam noqdo faataxadana aan aqriyo laakiin quraanka kale ay iyadu aqriso anigana aan dhageysto kadib markay dhamaysana aan anigu Allahu akbar dhaho rukuucda diid waxa qabta ninkaasi waa istaahilaa inay intaas ku dhacdo quraankiiba hadduu baro waay Allahu musta'an masaladu waxa weeye ninka hadduusan quraanka aqoonin xaaskiisu ma tujin kartaa la soo gaabiyo jawaabtuna waxa weeye maya ala saxiix haweenaydu rag ma tujin karto madaahibta fiqhiga oo isku waafaqsan yihiin inaysan tujin karin allahuma hal xaalon soo reebi doona mooye wadaadada qaar baa waxay u daliishadeen ama dadka qaarkood waxay u daliishadeen inay tujin karto xadiidka Waraqa bint Cabdillah Abu Daawud iyo keyrkii wariyeen nabiga booqan jiray gabadha ayada marka wuxuu gurigeeda ugu tagi jiray marka nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu u yeelay muadin u aadaama wa amaraha an ta'umma ahla daariha wuxuuna amray inay tujiso daarteeda ama gurigeeda dadka ku nool xadiidkaasi dhanka sixadana ولا اسكو هيستا محدثين فربنا وحي لين مسقنا حديثكم ورقه وضعيف وانا السيده اي ودودها انه ضعيف يعني ولو شيخ الباني تحسينيه هدي حتى اللي يلاهدو وسغن يحي حديثكو هذانا مر لبا دلالديس يا معنوه كتصيو ايان كو عدين مساله اني دمركو رغ توجين كرا لان محو النبي كويري وحو امري اني توجيسو أهل دارها waxay culimadu u badan yihiin in laga wado dumarka iyo adoomada guriga ku nool kuma cad inay rag tuji la yiri Soomaa marka macna ahaana dilaalada lafdigu kuma cad rag inay tujinayso sixa ahaana xadiidka sixadiisa la islaamo ogola bal waxa xoog badan inuu dhaif yahay hadii halka uu maro nusuusta iyo dhaqankii ummadda wuxuu weeyay inaysan haweenku tujin karin rag salaaduna ayna ku asaxaynin ijmaac bayna culimo badan soo rareen in masaladaas ayna khilaaf ku jirin waana masalada ay doonayaan gaalada iyo gaala raacyadu inay jabiyaan oo masalada xuquuqda dumarka iyo markay ka hadlayaan ay leeyihiin dumarku waa inay rag tujiyaan meelaha qaarkood oo reer galbeedka ka dhacday oo naag muxuu ahay masaajidka khudbaynayso rag tujinayso mid aadaamayso waa cabath waa ciyaar waa marka haweenaydu ma tujin karto ragga ma tujin karto xanaabilada fuqahadooda qaar kamida ayaa waxay yiraahdeen soo reebeen waa madhabta kamida culimadiisii qaar kamida waxay yiraahdeen haday salaatu sunnata taraawiixdo kale iyadoo quraanka taqaana isaguna uusan aqoonin way tujin kartaa inay salaatu sunna tahay hadana waxay yiraahdeen inay iyadu hormartamahay waa inuu isagu hormaro sida ninkan hadda uu xogaa ku keensaday si uu yara dhow ayay ku keeneen xanaabilada fuqahadooda qaar ka mid laakiin talafteedu waa iska ijtihaadiyo ma laha nas ma laha saas daraadeed gabadhu ha tukato adigana faatixadaada ku tuko faatixadu uu akhriyo ku wad faatixada ku celceli
malaha qul huwallahna waad garanaysaa qul huwallaha iyo faatixada inaha gaagaaban isaga tuko waxay leeyihiin ma hormari karto waxay u leeyihiin علشان وحوي أحاديث الصحاحة وحكوعد إن إنسان هوينيدو مش صفكيدو إنه قدالي هاي حتى مركو النبي سيارتي صلى الله عليه وسلم هو هاي كوريجي أم سليم يوه هو هاي ويل كيرا السجا قريب من مرين ما مدينة كذال بالمرين صدرت حتى حالداسي أي فقهاء حنابلة قار كم إذا تلمامين هوين إذا إني نك كهر مري كرتما هو هاي هرتيس استاجي سما لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ولاية عام كهان نقطه أما ولاية إمام ذي مساجد هالنقطة والله أعلم. جزيتم خيرا سائلك الواضح حلي هاي الشيخ أنا قوس ومن وحنقصن أيان دين تعايي صون كيجي مبري mise toobad unbaa layga rabaa oo qallo waajib iguma ah haddaad isgaranaysay markay kaa soo baxaysay kelimada kufriga ah miirkaagu hadduu joogay hadalkaa inaad ku hadlaysana aada isgaranaysay diinta waad ka baxday muslimatid haddii miirkaagu daboolmay oo cadhadu intay kaa dabadatay wax kaa soo baxaya aadan garanayn ama faraxii kaa tambatay oo kelimatu kufrigu kaa soo baxdo adoon isgaranayn sidii ninkii dhihi jiray oo kale allahumma ana rabbuka wa anta allahumma anta muxuu ahay abdi wa ana rabbuka soo maahayn ninkii cadhadu ka tambadatay waxaan u jeedaa faraxu ka tambatay haddii marka ruuxu uu miirka iyo igmaanka iyo garashada intuu waayo cadhada ka tambatay daraadeed wax ka soo baxay uusan garanaynin xaaladaas oo kale waa macduur laakiin haddii isagoo is-og xanaaqbaha uu geeyee uu ku dhawaaqo ilaahay caayo ama diinta caayo ama ambiyada caayo ama malaa'igta caayo daqiiqadaasuu diinta ka baxaya cudurdaarna ma leh maxaa yeele wax loogu cudurdaara ma jiro ilaahay iyo cadamadiisa iyo tacdiimkiisa cid jaahil ka noqon karta ma jirto soo saas maaha haddii ba la dhihi wax loo baadhbaadho wax loo baadhi karo ma jiro gaalka ah ayaan ilaahay caydiisa lagu kari karin soo ma ilaah aan u rumaysan yahay gaalku caayi maayo sidaas daraaddeed wax loogu cudurdaaro ma leh diinta haddaad ka baxdana soonna kuuma jiro salaadna ma jirto waa inaad dib u soo ashahaadato soonkaaguna waa buray laanna murtad baa tahay diinta haddaad ka baxdo ma soon baa kuu soconaya soon kuu socon maayo qadaayaadka noocaas oo kale ah waa arrimo u baahan ruuxa muslimka ah inuusan carabkiisu baranin inaad markaad xanaaqday ilaahay caydo bimacnaa wax weeye dhaqan bay kuu ahayd carabkaagaa yaqaanay soo ma carabkaagaa yaqaanay wa ilaa haddaadan afkaaga iyo carabkaagu aqoonin ilaahay caydiisa kumaadan soo degdegteen wax lagu soo degdegi karana ma allahu aclam جزيتم خيرا سائلك سدحاد وحليه الشيخ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله كبركة يا شيخ وحنا هاي نندن يرأه وحن كفتنا سنة هاي هردو مالكي أردن وان شيفا صلاة الشنطة أهنا وحن كتو كذا الصبح يا مغرب كوكليه صدح ذاك الهرداء أي يقول عفان لكن مركان توصو أيان سوق الليا صون كي جمع أنصح يا مساء وبريا محادثة يقولون ساحين لهاي هبينك أول هبين مسح ضمير هبينك بقى إلهي هردو وطلق عليه وركن كان هبينك إنه سنساحني بقى مقطو مالنتي مساحنا meeshaas aan dayuuba ka bilaabanaya waqtiga ilaahay ku talagalay in la seexdo saas daraadeed baa salaadaha badankood waxa la geliyay maalinimada Sooma salaada subax xilliga la soo kaco doorkii baa ku jira casarkii baa ku jira maqribkii baa ku jira cishii baa ku jira inta la seexan xilliga jiifka loogu talagalay waa xilliga aan cibaadiyo salaadi ku jirin Allahumma salaada sunnah oo cidi u soo kacaysa mooyaan
marka qaladku wuxuu ka yimid kala isbedelka uu ku sameeyay habeenkii iyo maalintii sidaas daradeed dayac baa ka muuqda wala shaka inuu aathim yahay haddii ruuxa isagoo dadaalay oo taxadaray oo muxuu ahaay hurdada xilligii la seexan jiray seexday oo dadaalkiisa sameeyay ay hurda la tagto ama hurdo weyn yahayba sidaana wax kaga tagaan markaas nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ruuxii yaani wax weey ay salaada hurda ka tagsiiso ama halmaan ka tagsiyo markuu soo tooso ama xusuusta ha tukado waqtigeedu waa kaas laakiin waa kee waa ruuxa taxadaray oo salaada u taxadaray oo dadaalay laakiin ninka maalintii oo iska hurdahay oo hurdan ku ibtilaysanay leh kuma ibtilaysanida wax way adaa isdhigay wax garawshale ma habeenkii seexo maalintiina salaadaha waajibkaaga tuko oo muxuu ahay ay cibaadayso haddii uu ruuxu uu hurdo weyn yahay salaada subax oo kaleeto waa suurtagal oo xadiidkii Abu Daawud kii ku yimid saan filayo nabigeena sallallahu alayhi wasallam muxuu ahay gabadhii u timid ee tii rasuulka Ilaahay oo ninkayga saddex arrimood bay kaga sheegtay waxay tii horta uu garaaca way garaaca salaadana subaxna uu ka seexdaa midda saddexaadna soonku iga jabiya saddexaas ku soo daaway saygi baa loo yeeray warbal waran baa gabadha dacwadaasi ka keentay waa runteed buu rasuulka Ilaahay inta way jiraan ama soonka aan ka jabiyo buu yiri nin baan ahay gurigaygaan joogaa xaaskaygii baan u baahanahay waa iska soomi buu yiri anoo jooga kadibna soonkeeda maxay iga galay danahaygaan ka dhamaysan buu taa iyada waxa lagu yiri ninkaago jooga ha soomin soonku waa sunno kii waajibka ma midda labaad oo ah salaada subax ma tukado waa runteed bay tir waa runteed buu yiri waxaan ahay waa hurdo weynahay sida nadaba reer hurdo weyn baan nahay habeenkii haddaan seexano barqin u baan kacnaa buu xilliga salaada subax ma kici karno nabigu wuxuu ku yiri xilligaas soo kacdo tuko hada waa nin dadaalay oo habeen seexday waa habeen haddaad seexdana waa dhici kartaa dadka hurdada weyn inay salaad waxa ka tagto Soomaa tii garaacista soo hadhay Soomaa waxaan u garaacaa buu rasuul Ilaahay quraan aan anigu akhristay iga akhristaa buu na quraankayga ii daabaan ka kari waa ha quraankayga banaanka iga mar nabigu wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam quraanku adiga iyo gabadha weydu ku filan yahay aduguna akhriso iyadana akhriso daabu ku yiri rasuulku sallallahu alayhi wasallam marka maxaan ka soo wadnay ujeedada wax weeyaan hurdada weyn waa sax garowsho way leedahay laakiin gowrmay garowsho yeelan kartaa markuu ruuxu dadaalo oo isagoo dadaalay ay hurda la tagto laakiin hadduu ruuxu dayaco sheekh hurda ila tagtay waan hurdo weynay socon mayso hada markaas u qastay ama dayaca iskale wallahu a'lam soonku de hadduu muslim yahay waajib uu ku yahay soonku waa saxaya waana waajib inuu la yimaado ما شاء الله سائلكنا فراد وحليه شيخوانكو سلامي سلام كدب waxaan ahay nin dhalinyaro waxa igu dhacay waxa iga dhacay khalad kaas oo ah aniga oo sooman ayaan xaaskayga u galmooday maalin Ramadaan ah markaan ogaaday inuu iga burayna waan ku celceshaday hawshaydii marka ma hal kafaaro ayaa la iga rabaa mise inta jeer aan u galmooday mid walba kafaaro gooni ah ayaa la iga rabaa hal kafaaro ayaa laga rabaa midii iyadoo adoo sooman aad galbada samaysay midaas kafaaradeeda laga rabaa hay'alay kuwan dambo dhan lam tusadif mahallan bayna fuqahadu sooma kafaarada waxa waajibiya galmadu markay soon Ramadaan ay la kulanto hal mid ba marka soonka la kulantay kuwan dambo dhan marka soon ma jirin sooma ilantii hore jabisay soon galmadii u horeysay soonka ma jabin kuwan dambe marka ma soomana sidaas daradeed kuwan dambe wax kafaaro ka laazimaysa malaha tii u horeysay bay kafaaradu ka laazimaysaa wa hada madhab al-jumhur wallahu a'lam culimadu soo badan yihiin
جزيتم خيرا سائلكم وحولي هاي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الشيخ وحا ربينا كويديو لبس سؤال وكلاء تنكوبات نيروبي أيا أفوركي اللي يقوى الدمي عنيقا أو مسافر وحانا أسعودي قربها كدي مركي دياردي كعدي أيان أرقني قرحدي أو سوشي دا أو وليبا دعين تنلبات مرركا قارنا waxaaba nagu dhacdo annagoo suxuurannay inaan soo duurno kadibna aan imaanno saacado yar kadib dal kale oo xilligaa laga addimaya makhribkii oo laga afurayo marka keen ku socdaa labada jeerba mise saacad baan fiirsadaa haddaad diyaarad saaran tahay maadaama joogga dhulka aada uga sarrayso qoraxdu way kuu muuqani ayadoo dhulka aada kor maraysa habeen ay tahay ayay qoraxdu adiga kuu muuqanaysa sidaas daraaddeed soonkaaga iyo salaadahaagu waxay raacsan yihiin kolba dhulka kaa hooseeya dalka aada markaa kor yacni wax aada kor marayso waa sax aniga igu dhacdayba marka ay qoraxdu inaga inoo dhacdo la afurayo diyaaraddu hadday kacdo oo ay galbeed aado dhankay qoraxdu u dhacday mudday sii soconaysaa qoraxdii oo kuu muuqata halkanna waa laga afuray ogow markay diyaaraddu kacaysay qoraxdu way dhacday laakiin diyaaraddu markay cirka aado hawada gashaba qoraxdii baa u muuqanaysa cabbaarna way sii daba socono way sii arkay marka maxaa ku afuri adiga waxaad ku afuri meeshanaad ku afuri muddadaa iyada ah ee ay kacaysay qoraxdaasi dan kama lihi laakiin dhulka ay kor marayso saacadiisa ayaad ku afuri meesha aad kolba aada marayso haddii meesha aada marayso ay u dhacday adigana way kuu dhacday waxba araggeedaas iyo muuqashadeedaasi dan kama lihi midda labaad haddaad soo tagto dhul kala timid oo dhulkii aad ka timid iyo dhulkaad timid wakhtigu kala duwan yahay dhulkan aad timid ayaad xukunkiisa qaadanaysaa haddii iyagoo afuraya aada u timid waad la afuri soo maa iyagoo ciidaya haddaad u timid waad la ciidi dalkaa aad timid baad markaa la xugum qaadanaysaa haddii wakti kaa tegoo dhexda ka baxayna waktiga kaa tegay hadduu maalin dhanna waad qallayna haddii kaleetana meeshaasaad ku xugum qaadanay wallahu aclam جزيتم خيرا سائلكم وحولي هاي طبعا وقف حنوسن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحانا هاي قف حنوسن ومالنكي مرنا وان مير دبول ما مرنا وان في عنا هاي صونكا ما يسكدين كرا وفدية ما بحين كرا مسوى إيقو واجب إنان صومو حدوث إيقو واجبي ما إيقا قد ميار رمضانكي suuxdinta maalin dhaweyd maan soo sharaxnay hadday maalinkoo dhan uu ruuxu suuxsan yahay oo uusan marna miyirsanin maalinkaasi uma xisaabsanaa laakiin hadduu soonkii usoo guntamo soo niyooday maalinkii marna suuxayo marna soo miyirsanayo soonkiisu waa sax imaamu shaafici iyo axmed ibn xambal xanaabiladii shaaficiyada iyo imo kaleba sidaasay qabaan marka soonku waa sax haddii uu marka wax weeye uu xamili karo oo wadi karo oo sidaa ku wadi karo ku soomi karana waa inuu soomo maalinkii sidaasi isagoo dhan u wada suuxsanaadana oo sidaa kaga tagana dib ha ka soo qalleeyo haddii uu soonkaa uu hayo uun suuxdin waxoogaa intuu yaro suuxo maalinka saacado soo kacayo laakiin soonkiisi uu wadan karanayana soonkiisa ha wato oo yuusan jabinin wax marka fidye uu hadda ugu wareego ma jiro fidye waxaa iska leh ruux xanuun hayo xanuunkaasuuna rajo lahayn xanuunkaana uusan la soomi karin intaa waay xanuun baa haya lama soomi karo uma xamili karo soonka marka labaadna xanuunkaasi rajo ma leh kaasaa waxaa laga bixiyaa fidye laga bixiyaa ama raashiin laga bixiyaa laakiin haddaad soomi karto waa inaad soonto haddii soonkii maalmaha qaarkood ay kaa jabaan ood wadi weydo waa inaad dib ka qallayso saas way macana nacam
جزيتم خيرا سائلك وقدم بحوليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الشيخ وحان جعلهاي نظافة بشهر رمضان dhexdeeda waxaan jeclahay inaan qabaysto ama cadar ismariyo ama cadaydo sida caadada bilaha kale ay tahay marka ma bannaan tahay inaan qabaysto ama cadaydo ama barafuun isku buufiyo maqribka iyo casarka inta u dhaxayso intuu dhimara qabayso cadayo cadarna ismari kulli dhimara qabaysku soonka waxa ma yeelo sida athar badan ku soo aroortay isqaboojin jireen markay kululaadaan ama nadaafadu qabayso ama isqaboojin mid labaadna cadaygu sidoo kale soonka waxa ma yeelo gelin horiye gelin dambatona ala sahih ala rajih imaam shaafici baa karahaystay zawaalka kadib gelinka dambe laakiin karaahada imaam shaafici waxay ku salaysan tahay fahm xadiis oo la khuluufu fami saa'imi atyab inda Allah min al-misk khuluufkaas ayaa wuxuu ka fahmay muxuu ahaayay wasaqda afka ku taala oo cadawgu baabi'inahay laakiin ay kala waxay leeyihiin khuluufku waa calooshu markay marato hawada ka iimaanaysa afka bedelaysa ayaa khuluuf la yiraahdo saas cadawgu ma tagsiin karo cadaygu ma tagsiin karayo adiga mid la yiraahdaba nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam xadiidkiisii saxiix ku yaalay lawla an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki inda kulli wudu yani hadaanan ummadaydu inay ku dhibaatooto ka baqayn waxaan amri lahaa inay wayse kasta agteeda ay cadaydaan sooma ma kala qaadi nabigu ruuxa sooman iyo ruuxa aan soomanayn saas daraadeed sida xoog badan ee saxiixa ah gelin dambe waa la cadayan karaa qabayskana waa la qabaysan karaa cadar iyo isgudgin iyadu meesha kuma jirtaba sooma cadar iyo isgudgin wax ka hadlay oo culimo oo yiri soom bay wax yeeli kartaa iyada ma jirtaba wallahu a'lam سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب